asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhowaada aad iyo aad aa umahadsantihiin maanta waa sabti waana 6 bisha 6 ee juun sanadka 2016 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago FBI-da Mareykanka oo shaacisay liiska 8 qof oo nin Soomaali ah uu ku jiro oo ah dadka baxsadka ah oo lacaga fara badan intay Mareykanka ka musuqmaasuqeen wadanka ka baxsaday lacago abaalmarin ah dul dhigtay qofkii soo sheega halka ay ku sugan yihiin dadkaasi maxay yihiin 8daasi qof ninka Soomaaliga ah ee ku jirana muxuu yahay imise lacaga ayuu ku eedeysan yahay arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagaya madaxweyne Trump oo shalay markii ugu horeysay wareysi uu siinayay telefishinka MBC qiray in Iran ay wali xoog badan tahay markii la weydiiyay muddo bila ah madaxweyne waxaa dhahaysay Iran quus ayay taagan tahay heshiis ayay rabaan inay qaataan laakiin maxay ilaa ay hadda ay heshiis u qaadan la yihiin madaxweynuhu muxuu uga jawaabay ugu dambeyntiina Trump wuxuu wareysigaasi u soo gabagabeeyay isaga oo aan dhammaan su'aalaha uu dhibsaday in la weydiiyo maxay yihiinna waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay kiiskii Feeding Our Future oo Soomaali fara badan ay ku eedeysnaayeen lacaga inay ka musuqmaasuqeen oo haweeneydii Amy Bark ay madaxda ka ahayd taasi oo bishii la soo dhaafay 21keedii lagu xukumay waxa jiray nin Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Saciid Cabdulaahi Erek oo haweeneydaasi la taliyo u ahaa dadka Soomaalidana ku soo dari jiray Feeding Our Future si ay halkaasi ururadooda ugu soo darsadaan lacagana ugu qaataan in ninkaasi uu baxsaday ka hor intii aan musuqmaasuqa lagu dhawaaqin lacaga fara badanna uu horay u qaatay haddaba FBI-da ayaa waxay khamiistii soo saartay liiskii ugu horeeyay dad 8 qof ah oo ninkaasi uu ku jiro oo ku eedeysan in ay musuqmaasuqeen lacaga fara badan wadankana ay ka baxsadeen oo ay baxsad yihiin lacaga ayaa la dul dhigay qofkii soo sheega halka ay ku sugan yihiin dadkaasi soo qabashadooda ilaa iyo marka dambiga lagu helayo la haddii qofka soo sheegana lacagahaasi ayuu heli doonaa haddaba FBI-da 8 qof oo shaaciyeen waxa ku jira sida ay sheegay ninkan lagu magacaabo Saciid Cabdulaahi Erek oo isagu ku eedeysan kiiskii Feeding Our Future liiska dadka FBI-du ay baadigoobaysa oo 8 qof ah ayuuna ku jira waxa uu dukaan ku lahaa koonfurta Minneapolis isla markaana waxa uu ku eedeysan yahay in uu musuqmaasuqay lacag gaaraysa 4.2 milyan oo dollar oo barnaamijkii Feeding Our Future oo xilligii coronavirus-ka loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo cuntadaasi in lacagahaasi uu ka lunsaday marka FBI-du waxa ay sheegtay qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay ama warbixin horseedaysa in la soo qabto iyo waliba in dambi lagu helo waxa uu helayaa qofkaasi abaalmarin lacageed oo dhan ilaa iyo 150,000 oo dollarka Mareykanka ah marka waxa uu ku eedeysan yahay marka Saciid Cabdulaahi Erek musuqmaasuq ay ka mid yihiin in lacago si sharci darro ah uu wadanka dibadiisa ugu xawilay iyo sidoo kale lacago fara badan in uu isdaba mariyay marka FBI-du waa markii ugu horeysay la leeyahay khamiistii ay bilowdo liiskan dadka musuqmaasuqa ku eedeysan ee wadanka baxsadka ka ah shacabka ayayna sawiradooda u soo bandhigeen dadkan isla markaana qof kasta oo soo sheega 8daasi qof ka mid ah lacagahaasi ayuu helayaa wiilkaasi Soomaaliga ah marka ayaa ku jira ama ninkaasi Soomaaliga ah oo la yiraahdo Saciid Cabdulaahi Erek oo FBI-du ay dul dhigtay lacag gaaraysa 150,000 oo dollarka Mareykanka qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay kulay Soomaaliya ayuu u baxsaday sida la filayo marka intii u dhaxaysay April bishii 4 2020 ilaa iyo bishii 4 2021 ayaa goobtiisa ganacsiga waxa uu si been abuur ah u sheegayay inuu ku quudinayay caruur fara badan isla markaana uu siiyay cunto gaaraysa 1.4 milyan oo cunto ah waxana uu helay 4.2 milyan oo dollarka Mareykanka ah uu qaatay marka Saciid waxa la leeyahay inta badan lacagtaasi qoyskiisa ayuu ku taageeray in nolol qaali ah ay ku noolaadaan waxaana jirta in lacaga fara badan uu ku xawilay akawno dibadda ah kuwaasi oo ay maamulaan kambaniyo sidoo kalena ajnabi ah ayuu lacagtaasi inta badan ku xawilay oo wadanka dibadiisa ayuu lacagtaasi u xawilay marka waxaa dacwad lagu soo oogay Saciid Cabdulaahi Erek dacwadahaasi oo kala ah in lacago uu si sharci darro ah u xawilay iyo sidoo kale isdaba marin lacageed
dacwadahaasi waxaa lagu soo ogay oo warranty federaal in la soo xira loo jaray bishii January 24 sanadkii 2024 marka ninkan dacwado ayaa lagu soo ogay laakiin wadanka waa uu ka maqan yahay waa uu baxsaday inuu Soomaaliya tagay ayaana loo maleynaya marka liiskan sidoo kale waxaa ku jira uu Saciid ku jiro 7 qof oo kale oo iyaguna wadanka ka baxsaday lacag fara badan intay musuqmaasuqeen kadib waxaana FBI-du ay sheegtay inay doonayso in dareenka dadka shacabka ay ku soo jeediso raggan baxsadka iyo dumarkan waliba isugu jira baxsadka ah isla markaana lacag fara badan oo dambiye dhinaca dhaqaalaha galay isla markaana lacagahaasi faraha badan la baxsaday liiskan waxaa sidoo kale ku jira dad lacagaha ay xadeen ay u dhaxeeyaan ilaa iyo 1.3 milyan ilaa iyo 1.2 milyan inta u dhaxaysa waliba qaar ayaa ka badan lacagahaas intaas la eg ayay dadkan ay xadeen oo ay la baxsadeen waa markii ugu horeysay oo la leeyahay FBI-du liiska dadka musuqmaasuqa ku eedeysan dadka loogu raadinta badan yahay ay ku soo darto FBI-da marka waxa FBI-du ay qoraal saxaafadeed ay soo saartay ay sheegeen musuqmaasuqu dhibane la'aan ma ahan oo dad ayaa markastaba musuqmaasuqa dhibane u ah waxay sheegeen dad fara badan lacagahoodii savingka oo ay kaydsadeen in ay ku lumiyeen dad ayaa guryahoodii ku lumiyay dad ayaa ganacsiyadoodii ku lumiyay dadna sidoo kale benefitskii ay ku tiirsanayeen markii hore dadku waxa jira markay shaqeeyaan waxay helayaan lacago iyaguna ay social security-ga lagu siiyo marka qofku markuu duqoobo lacagihii uu heli lahaa ayuu halkaasi ku luminaya marka waxay leeyihiin qof kasta oo soo sheega 8daasi qof mid kamid ah halka uu ku sugan yahay warbixin horseedaysa in FBI-du ay gacanta ku soo dhigto abaalmarin ayaa loo ballan qaaday laakiin anagu ninka Soomaaliga ayaan ka soo qaadanayna oo $150,000 loo ballan qaaday qofkii soo sheega waxa jira dadkan qaar ayaa 7 milyan ku eedeysan qaar 10 milyan laba kamida min 1.3 milyan ay ku eedeysan yihiin qof ayaa 32 milyan ku eedeysan qof ayaa 1.2 bilyan ku eedeysan qof kale 34 milyan ayuu ku eedeysan yahay marka lacagahaasi kala duwan ayaa dadkaasi ay musuqmaasuqeen wadankana waa ay ka baxsadeen marka sawirkoodana waa kan idin muuqda qof allaala qofkii garanaya dadkaasi waxa waa lacaga ayaa FBI-du ay dul dhigtay qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay muddo bilooyin hadda dagaalkan Iran uu kula jiro ku dhawaad 100 maalmood ayuu hadda ku sii dhow yahay marka 3 bilood ayuu kor u dhaafay Trumpna waxa uu ku celcelinayay Iran qoos ayay taagan tahay ciidamadoodii waan burburinay kuwii badda waliba difaacoodii cirka madaxdoodii waan baabi'inay marka qoos ayay taagan yihiin inay heshiis qaataan laakiin ilaa ay hadda ma muuqdo heshiis labada dhinac ay gaarayaan shalay Trump waxa uu wareysi siiyay telefishinka NBC gaar ahaan barnaamijka axadda baxa ee Meta Press barnaamijkaasi marka wareysiga shalay Trump waxa uu ku bixiyo gobolka Wisconsin halkaas waxa uu kula kulmayay beeraleyda maadaama beeraleydu lacag fara badan ay ku lumiyeen taarifkii uu Trump soo rogay haddana xirnaashaha marinka Hormuz waxyaabihii beeraha marka la beeraya lagu bacriminayay ay qaali noqdeen marka Trump beeraleyda ayuu halkaasi kula kulmayay hoolka marka uu kula kulmayay oo ah meel beer ah isla markaana cows fara badan uu yaalo ayaa aqalka cad waxay go'aansadeen Trump in wareysiga looga qaado roob xooganna waa uu ka da'ayay gobolka Wisconsin marka saqafka meeshaasi hoolka ah waxa roobka marka uu ku soo dhaco qabqab fara badan ayaa laga maqlayo dhowr jeer ayaa xitaa wareysiga dib loo dhigay maadaama roob xoogan uu da'ayay Trump marka su'aalo kulul ayaa la weydiiyay waxa kamid ahayd madaxweyne dhowr bilood waxaad leedahay Iran qoos ayay taagan tahay oo heshiis ayay rabtaa inay qaadato maxay ilaa ay hadda ay heshiiskaasi u qaadan la yihiin marka Trump waxa waaye geedaha ayuu ku soo rugtay oo wuxuu yiri madaxdii igu horeysay madax tabar daran ayay ahaayeen Iran heshiis lama gaari karin ugu dambeyntii waxa uu qirtay Trump Iran inay wali xoogan tahay isla markaana ay isla qab weeyeen waxa uu yiri they are strong and they are very proud waxa uu yiri aad ay u faanayaan oo iskula qab weeyeen sidaas darteed ma doonayaan inay si fudud heshiis ay ku qaataan Trump afkiisa ayuu arintaasi ka qiray marka sida muuqata Trump waxa uu leeyahay Iran wali waa ay xoogan tahay sida muuqatana Iran sidii loo maleynayay ma aysan noqon markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerarka ku qaadeen kadib haddii xitaa madaxdoodii sare la dilay oo inta badan ciidamadoodii badda la baabi'iyay Iran waxa la leeyahay 70 ama 90% gantaaladoodii waa ay haystaan iyo waliba gantaalada kuwii laga tuurayay iyo droniskooda aad u fara badan ayay haystaan bal waa kan Trump oo su'aashaasi gabadhan Kristen Welker ay weydiisay qaabka uu uga jawaabay. You have been saying for months, Mr. President, that Iran is
begging to make a deal. True. If they are so desperate to make a deal, why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States and other countries, frankly, that allowed them to get away with murder. And I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. marka madaxweyne Trump markii dambe wareysiga waa uu joojiyay maxaa yeelay waxa la weydiiyay su'aalo la xiriira doorashooyinka iyo madax banaanida doorashooyinka Mareykanka. Trump inta badan waxa uu dhaleelaa in doorashooyinka waraaq lagu dhiibto by mail. Waxa uu leeyahay dadku waa inay imaadaan goobta codbixinta maalinta doorashada oo ay codkooda dhiibtaan. Waxa uu leeyahay waa musuqmaasuq doorashooyinka mailka lagu dhiibto. Marka gabadhu markii su'aalo arrimahaasi la xiriira madax banaanida doorashooyinka Mareykanka iyo arrintan mail-in ballotka Trump wareysiga waa soo gabagabay. Wuxuu yiri wareysigan si ma wadi karo goobtiina waa uu ka istaagay. Marka sidaas ayaa wareysigiina lagu soo gabagabay isagoo waqtigii loogu talagalay inuu dhamaado gaarin ayuu Trump kursiga isaga kacay wareysigiina uu soo gabagabay. dhinaca kale doorashooyinkii talaadadii ka dhacay gobolka California weli tirintii codadka ayaa socotay waa ay soo gabagabowday. Musharaxa gudoomiyaha gobolka California u sharaxan ee dimuqraadiga oo wasiirkii hore caafimaadka maamulkii Biden ahaa Javier Becerra ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay 26.7% ayuu helay. Waxa ay November tartami doonaan Steve Hilton oo dhinaca Republicaanka u sharaxan oo isaguna gudoomiyaha gobolka California doonaya Trumpna oo taageeray oo 26.4% helay. Marka 16,593 cod ayaa labadooda u dhaxaysay. Marka waa doorasho aad isugu dhow. November marka tartan xoogan ayaa labadooda dhaxmari doona. dhinaca sidoo kale duqa magaalada Los Angeles amaba LA waxa kaalinta koobaad ku soo baxday Karen Bass oo 35% heshay codadkii la tiriyay. Sidoo kalena Spencer Pratt ayaa isaguna kaalinta labaad ku soo baxay oo 28.2% isagu helay. Marka labadooda ayaa waxay ku tartami doonaan duqa magaalada Los Angeles November marka la gaaro. Waxaana u dhaxaysay labadooda codad gaaraya 41,608 cod. Marka afartaasi xubnood ayaa waxay isku soo hareen laba waxay ku tartami doonaan gudoomiyaha gobolka California November marka la gaaro dhamaadka sanadkan, halka labada kale Karen Bass iyo Spencer Prattna ay duqa magaalada Los Angeles ay ku tartami doonaan. waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha doorashooyinkaasi. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.